waad ku mahadsantahay doorashada aad dooratay channelkeena. Intaanan u gudgalin fiidiyowga, subscribe dheh oo ka dhigo wehelkaaga mar walba iyo meel walba channelka Sirta Dahsoon. Mahadsanid. Kadib furitaankii kanaalkii Suez 1869, Soomaaliya ayaa waxay noqotay goob istiraatiijig ahaan muhiim u ah dal walba oo caalamka ka tirsan. Sanadu markuu ahaa 1884, dowladda Mareykanka iyo 13 dal kale oo Yurubiyan ah ayaa waxay ku kulmeen Berlin. Ujeedkooduna wuxuu ahaa siday u kala qaybsan lahaayeen qaybo ka mid ah wadamada qaaradda Afrika. About Somalia is that if you go way back in its history, it's always been either fought over or had foreign powers intervening in some way. Soomaaliya ayaa xilligaa waxaa loo kala qaybiyay 3 qaybood. qayb walbana waxaa loo dhiibay waddan gooni ah si uu u gumaysto ama uu ula wareego xukunkeeda. 3 qaybood oo loo kala qaybiyay Soomaaliya ayaa waxay kala ahaayeen: 1. British Somalia, Italian Somalia, iyo qaybta 3 oo ahayd French Somalia. Ogaadeenyankana waxaa lagu wareejiyay boqortooyada Itoobiyaanka, halka Kenyana ay la wareegtay NFD.